waa taayad bay u mahadsan yihiin dhalinyarada sharafta leh ee igala soo qayb qaadatay toddobaadkan barnaamijka waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Cumar Saciid oo barnaamijka toddobaadkan isku hawlay igala soo qayb qaatay isagu isa soo xilqaamay oo barnaamijka toddobaadkan igala soo qayb qaatay waxaan leeyahay hawl fiican baad qabatay aad baad u mahadsan tahay waxaan sidoo kale iyagana reer Garowe dhalinyarada reer Garowe jacaylkii iyo adduunyada waxa jacayl lagu soo kordhiyo aad baan iyagana ugu mahad celinaya talada ayna siiyeen iyo intaba waan qaadan doonaa waxaan isagana aan ka qayb ah oo aan arkayaa Cumar Maxamed Soomane oo ah wariye ka hawlgala TV-ga Universal magaalada Garowe waxaan leeyahay hadii aad timaadid halkan aad soo fadhiisanaysaa Cumarow waa tahay intaba waxaan leeyahay TV-gu waa TV-ga dhalinyarada waa TV-gi intii fanka xiisaysa iyo intii fanaanay iyo intii dhalinyarada iyo intii fikirkooda soo bandhigaysa intaba aad baan ugu mahad celinaya uguna soo dhaweynayaa barnaamijka English Show iyo TV-ga RTN waxay ugu tala galeenba inay qof kasta oo ra'yigiisa ka dhiibanaya ama ka fanka jecel ama ka fanka xiiseeya ama kii fanaanay heesa ama kii hal abuura ama kii gabay ile intaba inaan halkan ku soo bandhigno aad bay u mahadsan yihiin sida quruxda badan ay ugu xidhan yihiin dhalinyarada reer Garowe iyo fanaaniinta ay soo wada magacaabeen dabcan aan halkan soo fadhiisanay barnaamijka English Show aan ku wareysanay intaba waxaan leeyahay aad baan idinku mahad celinaya fursadday waqtiga aad dabcan siiseen daawashada TV-ga RTN anaguna inta ka badan ayaan dabcan idin xiiseynaa idin jecel lahayd barnaamijyo kale oo toddobaadyada kale ayaan dabcan mar kalena idinka soo qayb gelin doonaa anoo jecelba waliba aniguna aan jecelahay inaan tuulo kasta iyo gobol kasta iyo magaalo kasta oo Soomaaliya ku taala aan tago oo dhalinyarada la soo kulmo oo barnaamijka markaasi aan halkaas uga soo fududeeyo qof la faarigiisa ra'yigiisa iyo intii uu jecel yahay inaan halkaas dabcan aan kala soo wadaago waa tahay mar kale waxaan u mahad celinayaa wariyaheena magaalada Garowe Cumar Saciid oo barnaamijka quruxda badan aad arkaysaan Maryam Mursal iyo dhalinyaradii iyo wariyaashii intaba halkaas isku kulmiyay isugu keenay aad baan u mahadsantahay waa tahay barnaamijkeeni dabcan dacaawadan hadaan barnaamijkii qaybihii la soo duubay iyo heesaha aan idin hayo iyo su'aalaha aan idin hayo iyo jawaabaha aan idin hayo iyo intaba halkan kulay time kana waa in haya qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo galnay qof iyo laba ayaan rabaa inaan halkan farimihiisii inagoo qaybihii dambe ee barnaamijka aan soo gaarnay waxa halkan Cabdirasaaq oo jooga magaalada Hargeysa ayaa fariin halkan salaan iga soo diray wuxuu dhamaan waxaan salaamayaa familygayga hooyaday iyo inta itaqaano oo dhan buu yiri iyo RTN buu yiri daadiyaasha barnaamijka iyo sidoo kale madaxda RTN intaba salaan kaliya laabaan halkan uga diraya wuxuu ii soo qoray sheekadani waxay tahay waxaan hay masayr lagu yiri cudurka masayrka leeyahay igu dhacay buu yiri iguma dhicin waa ku dhashay buu yiri deela iskaga ma dhacaan waxay dadka waan ku dhashay buu yiri wuxuu yiri anigoo masayr loo iska baan waxaan guursaday buu yiri gabadh aad qurux badan markaan shukaasanayay wuxuu yiri waxaan oran jiray daqiiqadii sikin xageed joogtaa ha halka taagan tahay wuxuu yiri gabadh dambi ma laakiin dambiga ana iskale buu yiri wuxuu yiri gabadhii waan guursaday arooskii wuxuu yiri markaan nala soo galbiyay buu yiri arooskii aan gaarigii nala soo saaray buu yiri oo aan gaarigii saarnahay malxiisyadii baa ila socday buu yiri malxiisyadii gabadhii dabcan way isiqaanaan oo asxaabtii dumaashadeed bay ahayn oo isiqaanaan oo wuxuu malxiisayaashii wuxuu malxiisadii baa malxiis mid kamid ah wuxuu waaw maanta wallahi qurxlay baa tahay hayaay beautiful bismillah waan ku garan waayay qof kale waa iska garan kartaa dhalinyarada kaftamay saasan baanu eeg wuxuu dhukub show ninkan waati maalin buu xidhi bir intaan maalin isku dhacay baan ku yiri kaalna heshiisiyo dibtana wuxuu igu yiri niyo gabadha tan maxay tahay maxaan ka heshiisan hadaanay buu yiri maxay tahay aanay ku rabin daas ka tagto waa maxay gabadh adoo shukaansanay lagu leeyahay heshiisinay waa waaliye wuxuu yiri oo imika miyaan iska daayaa baan ku yiri hadda maxaynu sameynaa iska daa wuxuu sheekadii baa igu soo dhacday wuxuu yiri waa masayr waa shaki waa buufis buu yiri gurigii baa nala keenay wuxuu arooska intaanu fadhinay oo dhan saasan hareeraha u eegay mar baa naloo yimaaday nala salaama gabadha la salaama aniga la salaama wuxuu qofkii xoog gabadha walaalay guuriyo yiraahdo xooga wuxuu dhag waan xanaaqay buu naftaabigda wuxuu markii dambe ninkii xidhnay u sheego xaniyo saaxiib dhigayso arooska naga soo koob wax weeyaan ma madaxay xanuun war waxayna gurigii markaan sagnay buu yiri baa
dad aroosaan nahay wuxuu yiri telefonka iyo kii inanta uu furnaay waana soocayaa walaal uu guuriyo walaahan baliyo wuxuu yiri mid kala soo garaacayo wuxuu yiri samcada ay furtayo ha walaal uu guuriyo walaal de waad iga hortagtay ana rabay inaan ku guursadee laakiin walaal ninka ma laga yaabaa inuu ku soo furo mise wuxuu yiri ya maxaa tibay walaal ma laga yaabaa ninku inuu ku soo furo de waan ku sugayaa marka ku soo fure balaaba haduu ku soo furo walaal ila soo hadal ninkii wuxuu yiri lambarkii adduunka muxuu ahaa ninku waa kanaba wuxuu yiri dagaalka adduunyada gabadhi wuxuu yiri sidii baan ku kala tagnay wuxuu yiri 5 casha anagaan isqabin oo 7 ka bixin baan isfurnay buu yiri tii labaad baan bartay tii saddexaad baan bartay tii afraad baan bartay tii shanaad baan bartay wuxuu yiri gabadhi baa ka shakeeyaa laba salaam calaykum tii nala soo hormar wuxuu yiri bug hadda wuxuu yiri gabadhaas waxaan furay 5 sanadood ka hor ilaa abtiro gabadh ma guursan gabadha ka qurux badan tahay baan baraya shaki iyo cudur baa igu dhacay buu yiri maxaa lagu daweeyaa marka wuxuu yiri dabcan daawadayaal badan ayuu TV-ga RTN leeyahay oo ku xiran wax laga yaabaa in markaas su'aal aan helo ama dawo aan helo ama dhakhtar daweeyaba ama maskaxiyan quraan in isa saaro yani waxaan rabaa bal inaan waxaan faa'iido ka helo waana iga dhab buu yiri wallahi billaah taw soo dhaartay wuxuu yiri waa iga dhab masayrkaas ay ku dhacay bal masayrka maxaa la iga daweyn karaa yani barnaamijka iyo TV-ga RTN baa la soo xiriiray fariintaana in la iga gudbiyaan rabaa maxaa dawo horta ilaahay baa daweeya inkastoo barnaamijka hadda wali aan jawaabihii ka helin oo wali barnaamijku uu socdo ilaahay baa wax daweeyay marka anigu tala ahaan waxaan oran lahaa iimaanka isku jiliso qofka bini aadanka iska aamino bal shakigan iyo inkaartan iyo ila qofkuna horuba noolaayo mar hore iska noolaa isaga iska soconiyay marka iimaanka isku jilis baan leeyahay bal ilaahay masayrkan iyo waxaan iyo waalidan iyo qarracdan ilaahay ka saaro waa tahay daawadayaasha dabcan ku xiran barnaamijka ee TV-ga daawanayana wixii ay su'aal iyo soo jeedin isaga baan u diri doonaa oo isku daway ilaahay hadda way ilaahay masayrkaas cudurka masayrka wax ka xun ma jiraan caafimaad degdeg ah ka siiyo hablaha ilaahay ha u sakhiro ha isku keen sakhiro waa tahay intaas ayaan kaga gudbayaa barnaamijkeeni qaybihii dambe ayaan soo gaarnay iyo dabcan heestii aan idinkaga tagi lahaa ayaa soo gaarnay su'aalaha iyo fariimaha la ii soo diray aad bay u fara badan yihiin aad bay u badan yihiin dabcan waxaan leeyahay caawdan hadda halka sii fadhiyo fariimihiina iyo su'aalihiina iyo jawaabihiina intaba kama gaarayo laakiin bal waxaan leeyahay oo idin mahad celinayaa inta barnaamijka igala qayb qaadatay ee Garoowele iyo heesaha de ila fanaaniinta aan halkan heesooda soo dhigay iga laftirkooda way igala qayb qaateen oo juhdi bay galiyeen oo duubis bay galiyeen oo heesaha waad iska garan kartaan iyagana waa igala qayb qaateen waxa leeyahay aad baa ugu mahad celinayaa waxaan kale oo u mahad celinayaa muuqaalada quruxda badan maxamed xuseen oo farsamada inoo fadhiya Silvia oo iyadana kamarada inoo joogtay inta ka qayb qaadatayba waa u mahad celinaya heestan inaga tagi doonana waa Maryan iyo Farxaan Xidig oo caawada maadaama fanaanadii ay halkan qaranka inoo joogtay heesaheeda waa inaan caawa halkaas aad baalataan oo durdurtay intii jacayl hayo iyo intii wadaniga iyo intaba aan halkaas caawa aan inagala socdaan waa tahay Farxaan Xidig iyo heesta burba igu gidbane miyaad soo bixi karaa ayaa heestan la yiraahdaa dabcan waa hees hore oo iyaga qaaday balse iyada baan iminka kaga tagayaa barnaamijka xigeenteenu kulmayno nabadgelyo